Daawadayaal ku soo dhawaada Saxafi Films oo alaab uga barateen soo gudbinta xogaha iyo warbixinada ka cusub Bollywood-ka. Daawadayaal barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadan doonaa jilayaasha ka tirsan Bollywood-ka gaar ahaan 10 jilaa ee xanuunsan ee loo soo diiwaan galiyay ama loo soo calaameeyay inay yihiin jilayaal qaba xanuuno kala duwan oo noloshooda saameyn ku yeelatay. Jilaaga koowaad ee aanu soo qaadan doonaa waxay noqon doontaa atirashada caanka ah ee ka xamaalata Bollywood-ka ee lagu magacaabo Manisha Koirala, taas oo qabta xanuunka kansarka. gaar ahaan atirashadani ayaa dhibaato xoogan ku qabta xanuunkaasi oo nolosheeda saameyn xoogan ku yeeshay. Liza Ray ayaa iyaduna qabta xanuunka kansarka nooca aadka u daran, taasoo saameyn xoogan ku leh nolosha atirashadani, waxaana la sheegay in xanuunkani uu yahay kansarka waliba noociisa daran ee saameynta xun ku reebta bini'aadamka. Jilaaga caanka ah ee ka xamaalasha Bollywood-ka ee lagu magacaabo Saif Ali Khan ayaa isaguna ku soo baxay liiskani 10 jilaa ee xanuunsan ee ka qaraabta Bollywood-ka, waxaana la sheegay in jilaagani uu la dhibtoonayo xanuunka wadna xanuunka ama attack heart. Jilaagani ayaa lagu soo waramayaa in muddooyinkii dambe uu la daalaa-dhacayay xanuunka wadnaha haleela ama wadna xanuunka, taasi oo marar badan laga dareemo saameynna ku yeesha muuqata. sidoo kale liiskani waxaa ku jira Yuvraj Singh, wuxuuna qabaa cudurka kansarka gaar ahaan nooca loo yaqaan lung cancer, waana mid aad u daran oo saameyn xoogan ku yeesha bini'aadamka uu haleelo. liiskani waxaa daawadayaal sidoo kale ka soo muuqday aktarka caanka ah ee malaha ugu bada'da weyn xilligani jilayaasha ku jira Bollywood-ka, gaar ahaan aktarka caanka ah ee rugcadaaga Bollywood-ka ee loo yaqaan Amitabh Bachchan. rugcadaagani ayaa qaba xanuunka laleemada ama jarciska, waxaana sabab looga dhigayaa da'diisa oo aad u weynaatay darteed, maadaama uu dhaafay da'da 70-meeyada isla markaana uuba ku sii dhow yahay hadda in muddo yar kadib haddii nolosha u saamaxdo uu gaaro da'da 80-meeyada. waana sababta ugu weyn ee loo tiirinayo aktarkani inuu ku dhaco xanuunka laleemada ama jarciska. liiskani ayaa sidoo kale waxaa ka soo muuqday gabdhaha farakutiriska ah ee ku jira 10 jilaa ee xanuunka la nool. waxay noqotay gabadha lagu magacaabo Sonam Kapoor. gabadhan rugcadaaga Bollywood-ka ah ee uu dhalay Anil Kapoor ayaa waxay qabtaa cudurka sonkorta ama macaanka, waxaana xanuunkani dhibaato ku yahay nolosha gabadhan ku caanbaxday ka xamaalashada Bollywood-ka. gabadhani ayaa waxa uu cudurkani sabab u noqday in aanay wada qaadan karin raashimada iyo waliba dhaqanka guud ee nolosha, maadaama ay qabto xanuunka macaanka ama sonkorta. aktarka caanka ah ee Salman Khan ayaa isaguna ka soo muuqday liiskani jilayaasha la nool xanuunada kala duwan. Salman Khan ayaa la daalaa-dhacaya cudurka neerfaha madaxa ama brain problem, waana xanuun sababay in jilaagani shakhsiyadiisa iyo habnololeedkiisaba ay saameyn xoogan ku yeelato, iyadoo lagu tiriyo inuu yahay aktarada ugu xanaaqa iyo dabeecadda yar ee Bollywood-ka, maadaama marar badan jilayaal kale oo Bollywood-ka ka tirsan ay isku dhaceen ama la arkay isaga oo xitaa goobo fagaara ah sida xafladaha kale ku feeraya, oo dabeecadiisa ayuu xanuunkani saameyn xoogan ku yeeshay maadaama neerfaha madaxa uu la nool yahay. jilaaga caanka ah ee Hrithik Roshan ayaa soo galay liiska atoorayaasha xanuunada la nool, waxaana uu la dhibaatoonayaa jug madaxa uga dhacday yaraantiisii, taas oo dhibaato xoogan ku ah xasuusta aktarkan maadaama ay waxyeello u geysatay maskaxdiisa. waxaana la sheegay in xidigani uu ku liito dhanka xasuusta, iyadoo uu marar badan su'aalo la weydiiyo xitaa uu awoodi waayay inuu waxyaabo uu horey u soo sameeyay uu ku guuldareystaba inuu ka jawaabo sidii ay u dhaceen, maadaama uu qabo jug xoogan oo dhanka maskaxda ah yaraantiisii kaga dhacday. sababtaasna waxa uu kaga mid noqday 10 jilaa ee qaba ama la nool xanuunada kala duwan. boqorka Bollywood-ka ee lagu magacaabo Shah Rukh Khan ayaa qaba cudurka garab xanuunka
oo muddo uu la dhacay wuxuuna sidaasi ku soo galay liiska atoorayaasha xanuunada kala duwan la nool waxaana aktarkani la sheegay inuu dhibaato xoogan ku qabo xanuunka loo yaqaano garab xanuun ama inuu xanuun gaar ah ka dareemo dhanka garabka daawadayaal barnaamijkeeni gaarka ah ee aanu kaga hadlaynay 10ka jilaa ee Bollywoodka ka tirsan ee la nool xanuunada kala duwan isla markaasina dhibaatada xoogan ku qaba intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulantideena dambe waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo inaynu idin diyaarino barnaamij kale oo aad u xiiso badan